kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul soo laabasho waxay ka gaartay kooxda Wolves oo marti ugu ahayd garoonkeeda Emirates kadib 2 gool oo 8 daqiiqadood ee ugu dambeysay ciyaarta ay la timid ciyaar xiiso badan oo labada dhinac soo wada bandhigeen ayaa Wolves waxa laga diiday gool ay dhalisay daqiiqadii 6aad ee ciyaarta kubaddu naafaysan camidi ka keenay ayaa waxa xirada ganaaxa ka helay Sias oo goolka ku hubsaday waxaase markii uu dabaaldega bilaabay uu arkay calanka oo laga taagay dhinaca midig oo lagu sheegay inuu yahay goolkiisa offside kooxda martida loo ahaa ayaa markaan gool loogu shubay daqiiqadii 10aad ee ciyaarta taasoo kooxda Arsenal shaqo dheer loogu diray maadaama ay maanka ku hayso gool ay gaarto inay u dhawaanayso kooxda kaalinta afraad fadhiso ciyaarta ay ku gacan sareysay kooxda Arsenal ayaa waxa lagaga fiicnaa dhinaca halabuurka iyo cadaadiska oo Wolves halis gelinaysay goolka markay u soo dhawaato hase yeeshee qaybtii hore ciyaarta ay Arsenal ahayd mid dhibaato badan oo ay u marayay waayeen inay iska difaacaan kubadaha halis badan oo si fudud ku imaanaya xiradooda ganaaxa qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay iyadoo gool lagu hogaaminayay kooxda macallin Arteta markii la isugu soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta macallin Mikel Arteta ayaa isbedel degdeg ku sameeyay ciyaarta waxaana uu keenay Nicolas Pepe iyo Nakita xidigareed Afrikosta Nicolas Pepe ayaa dhamaadka ciyaarta oo ay 8 daqiiqadood ka harsan tahay waxa uu Arsenal u dhaliyay goolka barbardhaca kadib markii uu baas qurux badan oo xirada ganaaxa ugu dhiibay Nakata oo difaacyada ka mashquuliyay waqtiga dheeraadka ee lagu daray ciyaarta ayay Arsenal xaqiijisatay guul soo laabasho oo aad ugu dabaaldegeen waxaana garsooraha afka ku haya Seeliga dhamaadka u dhaliyay Alexander Lacazette kabtanka kooxda Arsenal sidaasna ay Arsenal ku heshay guul 2-1 Arsenal ayaa yeelatay 45 dhibcood waxaana hal dhibac ka dambeysay Manchester United oo 46 dhibcood leh kuna jirta kaalinta afraad kooxda Arsenal ayaa baaqi u yihiin 2 ciyaarood haddii ay guuleystaan 5 dhibcood ku dhaafi doonto Manchester United taasoo tababar Mikel Arteta iyo xidigiisu u noqonayay dib ugu soo laabtan tartamada qaaradda Yurub dhanka kale kooxda Barcelona ayaa iska xadirisay wareegga 8 dhamaadka koobka Europa League kadib guul 4-2 ay ka soo gaartay kooxda Napoli oo marti ugu ahayd garoonkeeda Maradona Stadium ee wadanka Talyaaniga 4 gool ay kala dhaliyeen David Alaba, De Jong, Gerard Pique iyo weeryahanka halista badan Aubameyang ay sidaas ugu gudbeen wareegga xiga ee tartanka Europa League